بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. له عذر كان قطلقا قبل أوتيريي سيد محمد عبد الله حسن أيام مانتا كنول geyiga ay Soomaalidu degto waa nool yahay gabaygaasi wuxuu ahaa Soomaali anigaa tanmiyey taab kastay tahayee anigaa tafniday tan iyo 10 jirkaygiye aniga ayuu iga ta'wiishaa ninkaan tooda garanaynin waa wada tuke iyo fulay haddaad rag isu tookhdaane way kaa timbanayaan intaan taabka loo imanee taraarkay jafayaan dhirtii wada tafiiqnaydee tinixnixinta beenah iyo waxbay tolologeeyaanee nin ragabaa ku tabantaabiyee tuug abaal ma lehee geesiga tilmaannaa mar baa fulay u tookhaayee mid tamiidda kuu guri jiray yaa kuu taltaal naqa ee midaan adiga kugu toosahayn yaa kuu tukhaashada gabaygaasu waa nool yahay meel kastoo af Soomaali lagaga hadlo waa nool yahay alxaqiiqa guddiga doorashooyinka ee heer qaran waa dhiban yihiin waa ciqaaban yihiin labadaa golay u ciqaaban yihiin waxba waa ka soo dhammaan la'yihiin sababtana garan maayo haddaan se maleeyey waxaan ka soo qaadayaa kursigii ay ku fadhiyeen oo ay meelay dhigaan la'yihiin waxaa u muuqda kursigii iyo wakhtigii oo dhammaadoo gebageba ah iyo iyagoo baaxaaddegaya ha baaxaaddegooy shiikhu waa balanbalkiisii war ilaahay baa calafkiina qoraye shuruucda naga dhammeeya kii ilaahay u qorayna wuu soo noqon kii kalena annuba waanu nool laho bannaankaanu joognaaye iimaanso alxaqiiqa ururada siyaasadda ee isku magacaabay xisbiyada waxaan leeyahay baarlamaanka agtiina fadhiya xildhibaanada ah waxaad tidhaahdaan war wixii idinku xidhan yihiine naga dhammeeya inta aad leedihiin farmaajaa kororsiimo raba khayraa kororsiimo raba dowladdu doorasho ma rabto war waxba kama jiraan been idiin sheegi maayo oo wallaahi maalintii la daariyey xildhibaanada maalintii la daariyey oo 3 sano iyo googo ay laga joogo qaar baan iman golayaasha ka warrama mushaharna way qaataan mushaharkaas meenu xaaraan ahayn ninka 3,200 ka nabadgeli weyday oo xaaraana oo cunaya miyaa ka nabadgelaya malaayiin haddii loo dhiibo cumar cabdirashiid cali sharmaarkaa ka mid ah waxaa ka sii daran wakhtiga kalfadhigu dhow yahay markay la gaadho miday gaandi yidhaahdaan baa faransiiska ka yimaada wuxuu iska ilaaliyaa in kalfadhigu ku dhaco dabadeedna waa dhooda waxba kuma kordhiyo soomaalina uma maqna
iyo qaar kaloo badan. waxaa xalay Holland iga soo wacayay xildhibaan yidhi kursiimo ma rabno. oo maxaad kursiimo rabtaa? Holland baad joogtaa. war dhibaatadan inaga haysata baarlamaanka Soomaaliyay bal u fiirsada. xasan sheekh maxamuud baa soo xulay intooda badan. الحقيقة doorasho ninkii wax isku hayow doorasho waa dhacaysaa. waxba annaga ha nagula wareegaalaysan, hana nagula meeraysan. doorasho xataa aadan ajenda ka lahayn kulli waa wada ogahay. doorasho waa dhacaysa. madaxweynuhu waa saxeex, prime ministerku waa sheegay. waa sunne 4 sanaba inay doorasho dhacdo. laakiin gidaar madow nugulama warwareegi kartaan. waa idinka khibradu badannahay, waa idinka waayo aragsannahay. horaannu u soo shaqaynay. mid waliba burburkii kadib buu ku soo booday. doorasho waa dhacaysa. weliba waxaan jeclahay markay doorasho dhacdo oo lagu kala calaf qaado inaynu isu ducayno. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. tafsiir siyaasi ah laakiin qofku aanu siyaasi ahayn ayay ka bixiyeen warkii ra'iisul wasaare. Soomaalidu waa oral society. waa nacayb baa ka buuxa. shalayna waan uga jawaabay, maantana waan uga jawaabaya. sidaa uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaruhu weeye. haddii ay xumadii kugu dhici lahayd iyo haddii coronavirus uu kugu dhici lahaa, iyo haddii aad odhan lahayd muxuu u jeeday, doorasho waa dhacaysaa. intaa ninkii ku qanci waayow isaga telefoon u diro maxaad u jeeday deh. الحقيقة ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم افرج لنا همنا وغمنا وعنا وكربنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.